dabada qaybtan qayb saddexaad wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan kulanti wanaagsan daawashada qiimaha meel kasta aad naga maqlasaan waa labadii bishii 2022 sanadka way dabcan maalmo isniina aan ku bilaabo sanadkan ugu horeysay waxaa ka taagan arin hadalhayn weyn dhalisay isla markaana khilaaf xoogan kor ugu sii abuurtay awalba xaaladihii siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka taagnaa ayaa soo baxday wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa amar uu soo saaray waxa uu dhaliyay khalkhal aad u weyn kadib markii la sheegay in arrintaasi ay noqotay faragelimihii ugu waaweynaa sida dadka arrintaasi eedeynaya ay ku sheegeen ee lagu sameeyo ciidanka hay'adda NISA oo la aaminsan yahay in ammaanka dalka ay wax ka bedeshay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Mudane Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa taliyaha hay'adda nabadgelyada qaranka iyo dabagalka hay'adda nabadgelyada qaranka Yaasiin Faray wuxuu amar ku siiyay in aysan garoonka ku shaqeyn karin ciidamada NISA isla markaana garoonka lagu wareejiyo ciidamada booliiska iyo ciidamo kale oo NISA ka tirsan ciidamada NISA ka tirsan ee laga soo reebay kuwa NISA ayaa waxa ah ciidan la yiraahdo waran iyo kuwa gaashaan labadan ciidan ayaa horfadhi meelay u koorgashay isla markaana waxay ogaatay in labadaba ay tababaraan isla markaana mushaaraadka ay siiyaan dawladda dalka Mareykanka halka la sheegay in ciidamada wasiirku uu faray inay baneeyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay yihiin ciidamada dharcada ee hubiya ammaanka garoonka iyo sidoo kale meelaha laga soo galo waxay arrintan si weyn u muujinaysaa ayaa leeyahay kadib markii ay u muuqatay arrintan mid markaasi khilaafka dhinacyada sii fogeynaysa waxa uu wasiirku uu markaasi warqadiisa u qoray sidan oo ku tilmaamay inay tahay sugid amniga garoonka aadan Cabdullaahi Cismaan International Airport kadib markii ay dhaceen gudaha garoonka isku halayn amni oo kaliftay dacaayad amni oo ballaaran maadaama mas'uuliyadda amniga ee garoonka qaybsan tahay kuna jirin hal gacan oo qura kadib markii ay bateen cabashooyinka ka soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada NISA oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogtana cadeyman buuxana loo hayo waxaa la go'aamiyay lana farayaa in guud ahaan amniga garoonka uu la wareego ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana lagu xisaabatamayaa saldhigga garoonka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaliya mas'uuliyadda amni ee garoonka wixii ka dambeeya 2 bisha Janaayo 2022 sidoo kale waxaa la go'aamiyay in dib loo soo celiyo dhammaan taliska iyo ciidanka NISA ee ka howlgala gudaha garoonka laga bilaabo bisha Janaayo 2022 waxaana la farayaa kusmaha hay'adda nabadgelyada inuu ku wareejiyo dhammaan mas'uuliyiinta amni ee hore gacanta ku hayeen ciidanka NISA si buuxda ciidanka booliiska kadibna ula soo laabto dhammaan taliska iyo ciidanka ka howlgala gudaha garoonka mana jiro wax ciidan NISA ah oo ka howlgalaya ama hub la gali kara gudaha garoonka marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha rasmiga ah ee ku leeyihiin ciidanka ee waran iyo gaashaan ee gudaha garoonka labadan ciidan ee waran iyo markaas gaashaan ayaa waxay hoos tagaan markaasi dawladda Mareykanka oo waxay la mid yihiin ciidanka danab ee qaybta militariga ee dalka waxaana arrintaasi ay dhalisay markaasi dood aad u weyn dad badan ayaa sida fiinta uga qayliyay durba waxayna ku tilmaameen arrintaasi inay muujinayso waxay ugu yeedheen in ay faragelin ugu sameeyay hay'adaha amniga dad badan oo kale waxay soo qaateen talaabooyinka hordagalay ciidamada NISA ay bariga ugu dambeeyay ka geysteen la dagaalanka waxay yiraahdeen kooxaha wax qarbuda kuwaas ay guul ka gaareen iyadoo garoonka laftiisana ay aad u ilaaliyaan sidoo kale arrintan dad kale waxay ku eedeeyeen in ay ka dameeyaan caraka dhalatay kadib markii la xiray dhabihii gaarka ahaa ama terminalkii gaarka ahaa ee dalalka iyo hay'adaha shisheeye ay soo mari jireen kuwaas oo ay hay'adda NISA ay la wareegtay kadib markii la sheegay in halkaas ay ka dhacaan dambiyo aad u waaweyn arrimahan ayaa imaanaya iyadoo xaaladda dhinaca siyaasadeed ee dalka la doonayay barihii ugu dambeeyay in la dejiyo magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin inta badan madaxweynayaasha maamul goboleedyada kuwaas oo la rajeenaya inay doorashada dalka ay dhinac u dirgiyaan balse waxay wararku u muuqdaan in ay tani sii cakiri doonto isla markaana murankii hore u sii socdo dalalka reer galbeedka ayaa dhawaanihii ugu dambeeyay waxay iyagu dhankooda sheeganayeen in ay doonayaan in la joojiyo xaaladda midnimada gutaagga isla markaana lagu bedelo hor socodka arrinta waxaana dhinacyada u sheegeen in ay ka waantoobaan hadallada kakan iyo in la soo saaro waraaqo joogto ah oo wiifta ah taasoo xaaladda sii xumee karta waxaana dad badan ay u arkaan in arrintan ay ka socoto xagga ra'iisul wasaaraha maadaama wasiirka amniga gudaha loo tirinayo inuu dhinacaasi xigo horfar video sidoo kale waxay isku dayday inay wasiirka arrimaha amniga gudaha la xiriidho si tafasiil dheeraad arrintaasi uga weydiiso laakiin se nooma soo wargelin halka dagala socota dabasha qiimaha wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda ee dalalka labada ah ee hubka nuclearka isla horfadhiya ee Pakistan iyo Hindiya ayaa waxaa la sheegay markii ugu horeysay in ay laba liis isweydaarsadeen waa labada liis ee xarumaha hubka nuclearka iyo liis dhinaca
dadka loo yaqaano maxaabiista ay kala haystaan. Arrinta ayaa la sheegay in saraakiisha dhinacyadu ay sameeyeen kadib markii ay sheegeen in ay arrintaas kor u qaadayso is-aaminaadda labada dal ayaa isku horfadhiya gobolka Kashmir iyo qaybo kamid ah gobolka Himalayan ee weyn, waxaana la arkayay berihii ugu dambeeyay oo dhan iyagoo isku bartilmaameedkoodu ay sii xumaanayso. khubarada dhinaca istiraatiijiyadda iyo hilaada ayaa waxay sheegayaan inay tani kor u qaadayso ayaa la yidhi mar walba khatar isku dhac 628 maxbuus oo ah kuwa markaas ay ku jiraan ayaa 577 qaarkood ay yihiin inay si sharci darro Pakistan oga markaasi kalluumaysanayeen ayaa kamid ah dadka ay gacanta ku hayso dowladda dalka Hindiya, halka konton iyo kow kalena loo haysto arrimo qaarkood la xiriira basaasidnimo. 2008 labada dal waxay kala gaareen heshiis ah inay liisaska isla wadaagaan. haatan waxaa la sheegay in Pakistan dhankeeda loo soo gudbiyay liis ay ku qoran yihiin 282 Pakistaaniyiin oo lagu tilmaamay in ay sameynayeen qaarkood ayaa la yidhi wax loogu yeeray markaasi sharci darro dhinaca markaasi kalluumaysiga. xarumaha dhinaca nuclearka ayaa dhinacyadu sheegeen inay isweydaarsadeen iyo liiska ay haystaan qolo walba, waxaana taas loo sheegay inay kor u qaadayso isfahan ugu yaraan soo dedejiya in labada dal xabad joojintooda ay sii socoto. sanadka 2008 ayay sidaas ku heshiiyeen sida muuqata. hagaag daawashana qiimaha leh wararka waxaa la dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan adduunyada haatan aan fiirino Taiwan. madaxweynaha dalka maamulka Taiwan ee go'aansadka ah haweeneyda dalkaasi madaxweynaha ka ah la yiraahdo gobol Tsai Ing-wen ayaa waxay dowladda dalka Shiinaha ku boorisay in ay joojiso haliilka dhinaca military iyo waliba militariyeenta jasiirada. waxay sheegtay in bilihii ugu dambeeyay dhamaadkii sanadkii hadeerto inay wadaartay 2021 uu ahaa sanadkii hurda la'aanta ee jasiirada kadib markii diyaarado Trapela ee hawada dalkaasi ku soo deysay xukuumadda Beijing. waxay sheegtay in ay joojiso hubka faraha badan iyo aaladda military ee soo dhoweysa gacanka Taiwan iyo marinka yar, waxayna ka digtay inay Beijing mar walba aysan xumeynin iyadoo hadlaysay isla markaana khudbadeeda ku soo beegtay saacada kadib markii uu hadal jeediyay isaguna madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping oo isagu sheegay inuu wacadna ku maray inuu dhulka hooyo mideed doono. haddana waxay sheegtay inaysan waxba tari doonin. xafiiska danaha Taiwan ee magaalada Beijing ayaa iyaguna daadifeeyay hadalka kasoo yeeray haweeneydaasi, waxayna ku tilmaameen hadal ay dalasheeya usoo dhiibeen iyagoo sheegay inay gebi ahaanba aysan jeclayn inay wax ka yar nabadgelyo lagu xaliyo arrinta, laakiin waxay ka digeen xafiiska dadka ay leeyihiin ayagu midnimo doonka ee magaalada Beijing ku yaala in ay ku sameeyaan doonaan xalka military haddii loo baahdo. dowladda dalkaasi Shiinaha ayaa waxaa la sheegay in laga baqayo in dagaal sanjabis ay ku qaado ayaa la xukuumadda markaasi Taipei. gudawaan Mareykanka ayaa wacad ku maray inuu taageero lixaad la sii doono haddii ay xaaladu xumaato, laakiin se rajo aad u yar baa laga qabaa in Mareykanku uu arrin gacan ka hadal ka qayb qaato haddii arrinta qir isku noqdaan dhinacyadu. cunug yar oo dalka Britain u dhashay oo xanuunka asaguna qabay ama xanuunka loo yaqaano xanuunka lafdhabarta oo ah xanuun inta badan caruurta ku dhaca qaarkoodna ay ku dhashaan ayaa markii ugu horeysay waxaa la sheegay in dawo ah tii dunida ugu qaalisaneed la siiyey. xanuunkan cunuga yar helay waxa uu ahaa mid markaasi gebi ahaanba ka dhigay cunuga mid aan koraynin, murqihiisuna aysan socon karaynin tan iyo intii uu dhashay. waxaana haatan ay dowladda dalka Britain waaxdeeda dhinaca caafimaadka ay ku dhawaaqday in ay u iibisay dawo loo yaqaano Zolgensma, taasoo ay qiimaheedu ku kacday ayaa la yidhi 1.79 milyan oo u dhiganta ku dhawaad 2 milyan iyo 100,000 oo doolarka Mareykanka lacag ku dhow. waxaa arrintan lagu tilmaamay inay tahay dawadii ugu ballaadhneed qoyska cunugaas yar oo warbaahinta la hadlay, gaar ahaan hooyadii ayaa waxay sheegtay in wiilkeeda yar oo Edward la yiraahdo, haweeneyda magaceeduna waa Megan Willis, in caafimaadka wiilkooda uu soo hagaagay isla markaana uu bilaabay inuu dhaqdhaqaaq sameeyo. aad ayaan ugu faanayaa hadeerto ayay tiri sida uu yahay wiilkaygu, waayo waxay ahayd wax aan la qiyaasi karin markii aan arkay sida uu noqday, waxaana iga soo daada gaadhay ilmo. waxay u muuqataa inuu hadeerto uu bilaabay inuu murqihiisu ay soo adkaadaan. markii hore lafdhabarta ama xangulaha ayaa gebi ahaanba aan shaqeynaynin. dawadan ayaa waxay kasabtay in ay dhaqdhaqaaq siiso ilmahaas, isla markaana waxay sheegeen in ilmahan uu muddo dheer noolaanayo sida ay sheegayaan khabaradu haddii uusan cudur kale u imaanin, laakiin dawada ayuu muddo dheer sii qaadanaya sida ay sheegayaan. daawadani waxay Irwan siisay waxay ugu yeedheen nolol cusub iyo waliba waxay ugu yeedheen kansho uu ku noolaa karo muddo dheer, balse waxaan la hubin ayaa la yidhi in ay arrintani ay keeni doonto inuu si degdeg ah uu lugihiisa isku taago. hadda wuxuu bilaabay ayaa la yidhi in marka la caawinayo uu kaco, laakiinse isagu isrogo, sidoo kalena uu bilaabo inuu fadhiga xejiyo sida ay sheegayaan haweenka qoyska wiilkaasi dhalay. caruurta inta badan ku dhalata arrimaha dhinaca waxa loo yaqaano spinalka
oo ama xangulaha oo halaysan ama aan lahayn waxaa ku dhaca inay murqahoodu kori waayeen isla markaana ay murqo yeeli waayaan isla markaana ay noqdaan sidii qof oo markaasi wada dibacsan wada hilib kaliya halkan kala socotaan wararka caalamka dhinaca diblomaasiyadda dawladda Shiinaha qiimaha leh qodobka ugu dambeeya arrintan ku xidhayo dawladda qiimaha leh waa dalka Jarmalka ayaa wuxuu ku dhawaaqay in uu laba kamida uu xuri doono xarumihiisa hubka nukliyeerka oo dood aad u weyn ka taagneed maalmihii u dambeysay inkastoo la filayay in hogaamiyaha cusub ee dalka Jarmalka qabsaday ninka la yiraahdo Mr. Scholz uu doonayay in uu sii wado furnaanta labadaas xarimood haddana dad badan ayaa mudaharaada sii wada kuwaasoo dalbanaya in xaruntu ay waqti kastaba ay dilaaci karto ama ay qarxi karto sidii Fukushima ka dhacday sanadkii 2011 dalka Japan waxaana la sheegay in markii uu rasiibay dawladda ra'iisul hore haweeneydii Angela Merkel la wareejiyay ay u qabatay sanadkan 2022 dawladda dalka ayaa markii ugu dambeyntii cusub oo garaatay in la xiro labada xarimood gaar ahaan xarunta koobaad ee leedahay Brockdorf oo iyadu dhacda 40 kiiloomitir meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Hamburg iyo isla markaana saaran duleedka webiga Elbe River si kastaba ha noqotee waxay sheegeen in xaruntan ay furneed ilaa iyo sanadkii 80 horaantiisii balse marba buu ka dhashay kolkii midowga Soviet deegaankii ka tirsanay Chomly 1986 ay masiibo dhinaca nukliyeerka ay ka dhacday xarunta kale ee Kroni ayaduna waxay dhinaca 40 kiiloomitir 20 mayl ka xigta dhinaca koonfurta magaalada Hannover ee Grameen waxaana loo arkaa galbeedka Munich waxaana loo arkaa iyadana xarun kale oo muhiim ah dalka Jarmalka ayaa kamid ah dalalka sida weyn looga ilaaliyo inay yeeshaan hubka nukliyeerka oo sida daran wax u gumaada maadaama laga baqayo inuu dunida markale halakeeyo kadib markii la xasuusan yahay wixii uu dhigay dagaalkii labaad ee dunida hogaamiyahoodii Hitler dad badan ayaa aaminsan in dadka Jarmalka qaarkood ay wali maskaxdooda ay ku jirto awoodii faraha badneed ee Jarmalka in la soo celiyo mar kalena ay dunida hoga tusaaleeyaan sidaa daraadeed waxaa jira heshiisyo afjaaq oo aan loo ogolayn hubkaasi dalka Mareykanka ayaa xarun military oo ballaaran halkaas ku lahaa dhawaan ayuu bilaabay qorshe lagaga saarayo kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka uu wacd ku maray in gabi ahaanba uusan kasii ilaalin doonin dalka Ruushka oo ku tilmaamay inuu heshiis hoose iyagu ay leeyihiin daawashada qiimaha leh qaybta afraad ee barnaamijka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda daawashada qiimaha leh fadlan qaybtan Hurfadhi TV ayaad ka daawan doontaan iyadana fadlan soo raaca halkaas linki ka arki doontaa si fudud daawashada qiimaha leh wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda